ururka dhalinyarada deegaan xebeedka Garacad ee degmada Jariban ee gobolka Mudug ayaa sameeyay bacaad gur iyaga oo kaashanaya hay'adda dhisaysa dekedda Garacad ee TTN. barnaamijkan oo iskaa wax u qabsada oo ay dhalinyaradu ka shaqeynayeen ayaa ay uga mahadceliyeen hay'addii ay kaashanayeen oo la shaqeynaysay dhinaca bacaadkana kala shaqeynaysay iyagoo sheegay bacaadka ay ka gurayaan iskuulka iyo waliba goobaha kale ee arrimaha bulshada muhiimka ah inay geynayaan meelaha baddu ay ka soo furayso. Raxmaan Raxiim marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa ilaahaygi maanta isku kalsooniyay meeshaan khayrka inaan isku nimaano oo wax dadka muhiim u ah aan qabsano. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii deegaanka oo igala qayb qaatay in ciidda iskoolka laga guro oo meel kasta ila maray oo xildhibaanad Abshiro iyo Yoonis marka saddexaad maama Kaaho ayadoo si fiican igala qayb qaadatay in iskoolka iyo baahiyaha ka jira oo hadda ciidda ugu darnayd ay aan daboolno ayadana waa u mahadcelinayaa guddida iskoolka oo ayaguna igala qayb qaatay hawshaas inay hore u socoto. bacadku Garacad wuxuu ku hayaa farakul waayo hadda ardada dirshadu waa furan waayeen huurkii la arkay ilmihi waa u xiranta dirshada iyo bacadka waa sareeya wuxuu ugu daadanayaa meesha la yiraahdo gudihiiba ugu daadanayaa bacadka markaan aan ka dhamayno meeshaan haddana geedaan ku beeranaa yaasha maamulka iskuulka dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan aad maaragta ugu mahadcelinayaa allihii ina abuuray inoona qadaray inaannu isugu nimaadno meeshaan innagoo gudanayna waajib ka mid ah waajibiyada shaqo oo masaalixdeenna sida iskuulka shaqadiisa ilaahaasaa mahad iska leh. waxaa kaloon u mahadcelinaynaa shirkadda TTN oo aad iyo aad nooga caawisay hawsha saakay meeshaan ka jidha oo ah iskuulkii Garacad oo ciidi ay fuushay labada dhinac albaab darishadihii dhinaca dambe ahaa iyo albaabkii hore labadaba ciidi ka qabsatay dhib badanna lagu qabay waddadii iskuulka loo mari jirana ay goysay arrintaas oo ay naga saacideen TTM arrintaas yaanu uga mahadcelinaynaa ilaahay kadib mahadiisa. waxaan kale oo u mahadcelinaynaa dhammaan dadka arrintan soo abaabulay oo sida ururka dhalinyarada Garacad oo guddoomiyihii Maxamed Cabdirasaaq Axmed Yaasiin uu nala joogo iyo xildhibaanadii degmada Jariban oo ay nala joogaan Yoonis Cali Xaaji iyo xildhibaanad Abshiro Guushaa iyo xubno waaweyn oo ay ka mid tahay maama Kaaha iyo dhalinyaradii iyo maamulkii iskuulka dhammaantood waan u mahadcelinaynaa.